salaamu ullaahi calaykum daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada oo aan ku soo qaadan doono guud ahaanba xaaladda ka taagan dalkaasi Itoobiya. daawadayaal qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah xaaladda gobolka Tigray oo maraya meel xasaasi ah kadib gelitaankii ciidamada Eritrea, qorshe ka dhanaa dowladda Itoobiya oo ay wadaan wadamo ay ka mid yihiin Masar, Suudaan, Soomaaliya oo aan xog idin ka hayno. wadahadaladii TPLF iyo Itoobiya ka qabsoomaya dalka Jabuuti oo aan midho dhal fiican lahayn yaa qabsaday garoonka Xumayra xilli ay socdaan duqeymihii ugu cusla Abiy oo hub casri ah ka soo iibsaday wadanka Iiraan xilli loo diidanaa in ay hesho Itoobiya hub casri ah oo lagu jabiyo jabhadda ka dagaalamaysa gobolka Tigreega ee TPLF. haddaba xagee loo soo mariyay arrimahaasi iyo qodobo kale oo xasaasi ayaan idinku haynaa barnaamijkeena falanqaynta. waxaana barbarkayga fadhiya saaxiibkay Wacane oo ila faaqidi doona. Wacanow, sidaad la socotaba Itoobiya barihii ugu dambeeyay waxaa ka socday dagaalo xoogan oo asbuucii saddexaad ba galay. inta badan indhahaad waxaad ku haysay dagaaladaasi. haddaba xagee waxa la kala marayaa xaaladihii ugu dambeeyay, gaar ahaan dagaalada ugu culus waxay ka socdaan galbeedka waqooyi galbeedka aan ilaahdo gobolkaasi waqooyiga amxaarada iyo Tigray deegaanada isaga soo dhawaadaan. marka bal ku soo dhawow. aad iyo aad ba maasantahay Furgadow. xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia waa kuwa marka dambe weji kala sii yeelanayo, iyadoo wejigaasi u sii yeelaya yani ama sii adkeynaya xaaladaha dalka socda dagaalada dhanka waqooyiga Tigray iyo sidoo kale xuduudda Eritrea si weyn uga socdo oo meeshaas ay ka socdaan dagaalo ahliya oo dhanka kalena ay dhinacyadu isku adeegsanayaan hubkii casriga ee ugu dambeeyay. dhanka kalena xaaladda waxaa sii adkeynaya oo kasii daraya dagaalada ayagana ka socdo deegaanka Axmaaradii kan Cafarta oo marka kaleeto dhinacyadu ay sheeganayaan inay guulo gaarayaan. dagaalka waxaa sidoo kale sii adkeynaya deegaankan Xumayra oo labadooduba ay midba yani dhanka ciidamada huwanta iyo waliba dhanka xooga Tigreega ay ayagu ku looltamayaan sidii deegaankaasi ay gacanta ugu qaban lahayd. deegaankan waa midka gooy doona masiirka dhabta ah ee dagaalka meesha uu socdo ama jihay doonaba. deegaankan waa deegaan saddex geesooda oo saddex xuduudood waa Ethiopia, Suudaan iyo waliba Eritrea. haddii deegaankan cidii ay gacanta u gasho oo si dhaba deegaankaasi u qabsato ayaana dagaalka inta badan control doonto. dhanka kale waxaa sii adkeynaya dagaalada ka socda gobolka Wolo oo ayagana weji kala yeeshay oo ciidamada huwanta iyo waliba kuwa dowladdu kuwa Tigreega ay sheeganayaan guulo hordhaca oo dhinacyadu ay halkaasi ka gaarayaan, walow dowladdu ay sheegtay inay qabsadeen deegaamo ay TPLF hore ay u haysatay. laakiin xaaladuba waxaa sii adkeynaya duqeymo joogto ah oo ciidamada dowladda iyo waliba kuwa Eritrea ay si toos uga wadaan deegaanka Tigreega. dagaaladii oo haata socdo iyo waliba musiibooyin ka dhashay macaluusha iyo waliba dhaawacyadii halkaasi dhibaatadu ay ka soo gaadhay oo duqeyntu inta badan lala beegsanayo dadkii ka qaxay magaalada Almaata iyo waliba magaalada kale. Wacano, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaa socday duqeymo aad u xoog badan oo lagu hayay garoonka Xumayra. sidoo kale waa run oo magaaladaasi waa magaalo istiraatiiji ah. ciidamada Eritreanku barbar bay ka kulaalayaan oo dagaalada kaga jiraan. Suudaantu barbar bay laftigeedu kaga jirtaa. garoonkii habeenkii xalay ah waxaa socday duqeymo xoogan oo qoladan TPLF ay ku doonisay inay gacanta ku dhigto. dhanka kale qoladan kale ayagana dowladdu ay ku difaacanayeen. garoonkii gacanta ku dhigay mise wali wax warbixin ka soo baxday ma jirto. dagaaladu halkaasi waa ay ka socdaan oo dowladdu waxay cadaadis ku saaraysaa xooga TPLF inay halkaasi dib uga riixdo, iyadoo waliba xooga TPLF taageero lixaad la keenaysa dhanka Suudaan oo halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamadii nabad ilaalinta u joogay South Sudan iyo waliba Suudaanta kaleeto iyo waliba ciidamo kaleeto ayagana ah dadkii Tigreega u qaxay deegaanka dalka Suudaan oo ayagu dib loo soo hubeeyay isla markaana xuduudda ku sugnaa. magaalada laguma kala bixin, waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo ay guushu ku raaci doonto dhan ama haday noqoto xooga TPLF ama dhanka dowladda oo weli haatan magaaladaasi haysto. dhanka kaleeto waxaa iyadana la sheegayaa inay xaaladdu haatan tahay mid baraka la'aan oo dhinacyadu ay ku luultamayaan sidii magaaladaasi ay gacanta u dhigi lahayd. magaaladan horey waxaan u sheegnay inay tahay magaalada gooy doonto jahada dagaalka iyo sidoo kaleeto cidda guusha dhabta ay raacayso, iyadoo weliba wadahadaladii la rajeynayay inay qabsoomaan lala sugayo sida ay dagaalku yani cidda ku guuleysato oo guusha hordhaca ka gaadho. taasi ayaana moodaa inay wadahadalka yani dhankeeda loo xaglin doono.
wacanow sida alla socotaba waxaa jiray in wada hadallo ay dabada ka riixahayeen dowladda maraykanka weliba erga ay usoo dirtay ilaa iyo saraakiil diblomaasiyiin ay ka mid yihiin ergeyga u qaabilsan africa ama bariga africa dalka maraykanka sidoo kale waxaa iyadana jirta ma garanaysaa dhanka TPLF laba sargaal oo laga soo qaaday oo ayadana ma garanaysaa la doonayay in dalkaasi Djibouti lagu wada hadalsiiyo arrimahaasi maxaad ka haysaa aad iyo aad laba sargaal oo diyaarad ka baxday magaalada Addis Ababa isla markaana loo diray dhanka Bakale taasi oo soo qaadaysay laba sargaal oo wada hadallada TPLF uga qayb gali doono wada hadalladan ayaa la filayaa inay ka dhacaan dalka Djibouti ilaa iyo xilligan labadaasi sargaal iyo sidoo kale to waftigii qaramada midoobay waliba ergey gaarka Mareykanka waxay ku wada sugan yihiin magaalada Addis Ababa halkaasina waxaa ka dhacay wada hadallo يعني لو جوجل حري وده هذا الكوين كان عداره مقالة جيبوتي دلك جيبوتي أرنتها سي واحد ودائري جبهابا ديب لون جاي كتب على السياب بدل ودولته أي قاعدة تري أنت لما سيسر قال لكاري مقالة أدي سببك ويجوه ريسي تقيبه كل جوكس قال هاي نقولها القاضي كاسي السعودة أيضا ولي لما سيسر قال شروط لو حري أدي سبب كوي بعدين أهد إلا جوجيو duqaybaha joogtada lagu haya magaalooyinka waaweyn Adigreed Almata iyo waliba magaalada Bakare intiina waliba dawladdu waxay ka joojisay bale dawladdu waxayba sii kordhisay diyaaradaha basaaska ee dalka China laga leeyahay oo ayagu si toos ah ama si talatal u aaday dhanka digaaga Tigreega xogaha soo ururinayo iyo waliba kuwa duuliyaha aan lahayn oo ayagu la wado duqayba aan kala joogsan lahayn marka guud ahaan markii la fiiriyo qaabka wax u socdo diblomaasiyadu waxay ku sugan yihiin goobaha safaaradaha oo halkaasi ayay يعني أي جوجان لبضني مسؤول كسر دقائق تكرجة وحيل جوجان بدحدي كلاته نحن حديد ديسي وده هذا الكلوج كل حاريو بركي أربعة سنة فيريو وده هذا الكوج طبيل وحول قدرة بالفشل به صابته قاب وحكوس على بركي لفيريو بقى قاب وده هذا lagu gali karo sababtoo dawladdu waxay sugaysaa natiijada ka dhalanaysa dagaalka ka socdo xuduudda deegaanka Tigreega iyo midka Eritrea waxay sugaysaa natiijada dagaalka ka socdo ee gobolka Wollo waxay sugaysaa sidoo kale deegaanka Humera oo iyadana dagaal uu ka socdo marka la fiiriyo guud ahaan qaabka ay dawladdu wax ku raadinayso ayadii ayaa dalbanaysa wada hadallada ayadii ayaa hadarana wada duqaybihii iyo waliba duulaabkii ay ku haysay shacabka Tigreega وأنا وادي أد بعض ما هتصرت هاي سيدو كله وحنون بعد علينا داود ياشا برتر عن كهالينا نقول نجاجات عن داود يلو حنوس السعودية قدباء كم مديهين دولة دو قرشه سيد دبدا مجوضاء أو كم مديهين مصر السودان يولي بالصوماليا سيد عن حكته كهلينو بس هو حنكون رئيسين دونا قدب كوسابسان إن دولته أي هوب كسو إبستي دالكاسي إيران سيدا الله سعوته وعرو وحال شيء يا إن دولته أي هوب عسرعة أي كسو إبستي ودن كإيران وحنا لو سو مريي ودن كليدا هذا إريتريا لكن ما قرنا يساي هوب هذا فربنا وقفيسي كوشرة سيدا الله شيء كدبنا وحنا هذا حكته عن كهل إنه إذا ما نفرح بدن هذا الله شيء إنه كهول قليان أما كهول قليان دن كحدود ay Tigreegu kala wadaagaan canfarta inay wataan qaar Addis Ababa si qarsoodi ah lagu soo galiyay arrimahaasi oo farabadan waa ay jiraan marka maxaa arrimaha xogaysa aad horta dawladdu waa dawlad madax bannaan hubna way ka soo iibsan kartaa wadanka dibadiisa waana dawlad haatan access u leh maadaama wadanka dalkeeda u dagaalo ay ka socdaan in ay wadamo kalena deeq ka hesho hubeed dhanka kalena ay ka soo iibsato waa mid u sahlayso waxaan ogeyn horaaba 2022 in dawladda federaalka Ethiopia ay soo iibsatay diyaaradaha waxbasaasay drones ka soo iibsatay wadanka Turkiga China diyaarada kale oo iyagana ugu deeqay oo ognahay in kuwa haatan dagaalka si tooska uga qayb qaadanaya macluumaadka bixinayo arrimahani waa arrimo maalmihii ugu dambeysay warbaahinta madaxa bannaan ay si toos u tabinaysa hubkan uu sahlay kadib markii dagaalkii uu sii fiday oo meelo badan ay qabsadeen waxaan ogeyn xuduudda cafarta iyo sidoo kale deegaanka dalka Eritrea inay ciidamo aad u tiro badan ay ka soo tilaabeen isbuucii ay soo dhaafnay kuwaasi oo tirada lagu qiyaasay ka badan 2,000 oo askari ciidamadaasi waxay wateen hub aad u tiro badan hubkaasi wuxuu noqon doonaa mid ay rabaan inay ku dagaalgalaan wuxuu noqon doonaa mid kale oo Ethiopia loo wado oo soo gudbinayeen guud ahaan marka xaaladda la fiiriyo arrintaasi waa arrin macquula haatan بجرتو هيدا مدح بنات أو هب كاسي كنتروليو إثيوبيا لا وحياتاً إكسس ويستائل وضع كاستا أو هب أو دقيق كرو إلى كسو قادته وعنونا TPLF أو عنونا إلى تجبهت إسلامر كان دقيق كودو وبين والبكحرية أو بين وحلو مريال هاي
inay haatan la soo baxeen hub casriya oo kula dagaalamayaan dowladiiba ay haatan meelo badan ka qabsadeen taasi ayaa ku tusaysa inuu hubku soo gelayo gudaha dalka Ethiopia haday noqoto mid ay Ethiopia keensanayso iyo haday noqoto mid loo geeyo mucaaradka kale dhanka kale to ururka oo ayaga laftirkooda aan ognahay in ay ka dhex dagaalamayaan Central of Ethiopia ayagana hub ay haystaan oo hubka loo soo marinayo gudaha ama wadamada dariska ayagana waa mid aad ugu soo qulqulay hubka dhanka Suudaan ayaa loo soo barinaya meelo badan ayaa yani hubka dalka Ethiopia laga soo gelinaya marka xaaladda dalka Ethiopia iyo hubkan ay dawladdu haatan keensanayso waa mid ugu dambeyn shacbiga dalka Ethiopia u gacan doono oo loo waliba 2022 dagaal ka socday deegaanada axbaarada inuu hubka casriga ah ee dawladdu dhanba uu gacan galay shacabka iyo waliba ururka Fano taasi oo markii dambe sababtay inuu hubka asaga ay dawladda ay lahayd dib loogu adeegsado dawladda oo loo shantii bilood ee waliba wada hadaladu ay socdeen isla markaana xabad joojinta ay ku jireen TPLF iyo dawladda inuu hubkii dawladda lagu la dagaalamay ciidamada militariga ku sugnaa deegaanka axbaarada marka hubkii controlaan ayuu noqday wali hub casri ayaa soo gelayo hubkaasina ugu dambeyn waa mid ayada lagu la dagaalami doono waa mid la saadaali karin waxa uu noqon doono mustaqbalka Ethiopia aad iyo aad baad u mahadsan tahay wacanow sida alla socotoba baryahan dawladda Masar waxa ay magaalada Qaahire caasimada dalkaasi ku ururinaysay wax allaale wixii mucaaradkaasi sida la sheegay waxa ugu tunka weyn waa nimanka hadda dawladda dagaalka kula jira ee lagu magacaabo TPLF ururo far badan oo mucaarad ku ah oo qaar isqarinaya iyo qaar aan isqarinaynin ba ya meesha ka qayb galay waxa kale oo ka qayb galaya diblomaasiyiin ka socda dalka Suudaan waxa ka qayb galaya sida la sheegay qaar ka socda ee dalka Soomaaliya sida la sheegay in kastoo qarsoodi tahay in kastoo haddana dawladda Soomaaliya uu magaranaysaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu xiriir la soo sameeyay Al-Sisi kadibna uu kala hadlay xiriirka iyo iskaashiga xilli ay socdaan dagaal culus arrimahaasi maxaad ka faahfaahin kaysaa horta warkani wuxuu soo baxay isbuucii ugu dambeysayba waxaa si toos ah warbaahinta iyo waliba goobaha siyaasiyiinta ay ku wada xidhiidhaan si toos looga maqlayay guux siyaasadeed oo ka dhashay inay jiraan Masar iyo waliba wadamo kale oo ayagana geeska Afrika oo Soomaaliya ay kamid tahay Suudaan ay kamid tahay in ay wadaan abaabul iyo waliba inay aruuriyaan mucaaradka dalka Ethiopia haday noqoto kuwa dagaalamaya iyo waliba hadii ay noqoto kuwa ayagu raay ahaan ka soo horjeeda dawladda federaalka Ethiopia guud ahaan madaxdan ka socoto ururada mucaaradka iyo kuwa dagaalamaya waxa ay isku tageen wadanka Masar gaar ahaan magaalada Cairo halkaasi oo laga soo abaabulayo dagaalka dhala Ethiopia haday noqoto kuwii si dagaalamayo la xoojinayo iyo waliba hadii ay noqoto dhanka dawladda Soomaalida oo la rabo in laga geliyo ururka Al-Shabaab oo ogeyn bishii ay soo dhaafnay in ciidamo aad u tiro badan oo dhowr meelood ka soo galay inay soo galeen dawladda Soomaalida waxaanu aad iyo aad baad u mahadsan tahay warbixinada isdaba jooga ee naga siinayso guud ahaanba dalkaasi Ethiopia daawadayaal sida aad la socotaan ba sidoo wacna inoo sheegayo waxa weeyaan qorshahan waa qorsho la doonayo in ma garanaysaa lagu burburiyo dawladdaasi Ethiopia kooxaha deegaanka kooxaha waxaan u jeedaa Al-Shabaab kala raba deegaanka in dhankan laga geliyo nimanka la yiraahdo OLA da laftigood in caasimada ay weeraraan marka ku soo aad baad mahadsan tahay waxaa jirto qorshe weyn oo Ethiopia la rabo in gabahaanba goobo fara badan looga furo dagaal oo ugu horeyso in dhanka deegaanka Oromia lagu abuuro jabhado iyo waliba kooxo argagixiso u tababaran sida Al-Shabaab iyo waliba Daesh iyo waliba ISIS waxaan ogeyn deegaanka Soomaalida bishii ay soo dhaafnay ciidamadii dhowrka jaha ka soo galay oo ilaa iyo xilligan gudaha dawladda Soomaalida qayb ka mid ah ku dhuumaalaysan isla markaana dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa ka wado oo waliba warbixin uu daabacay ama uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada dalka Ethiopia oo ku sheegay in ay jiraan ama la dagaalamayaan ururka Al-Shabaab iyo waliba Ogaden Fighters arintaasi oo loo fasirtay inay jiraan dhibaatooyin ku soo wajahan dawladda Soomaalida isla markaana xalayto waxa soo baxday warbixin sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah buuraha Nogbeed iyadoo waliba aan ogeyn horaan inay joogeen dhanka gobolka Afdheer degmada Ceelkarri oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ama kuwii galaba dawladda Soomaalida ee ururka Al-Shabaab ayagana qayb ka mid ah ay halkaas ku sugan yihiin guud ahaan markii la fiiriyo kulishigan siyaasadeed ee haatan ay bilowday Masar ee Soomaaliya ka mid tahay Suudaan ay ka mid tahay iyo waliba ururada dalka Ethiopia
ay ku jiraan waxay sababi doontaa dagaal weyn oo ka qarxa gudaha dalka Ethiopia kaasi oo haatan u noqon doona midka ka socdo mid asawga qarsa dhanka kale marka fiirino urka oola waxa ayaga loogu talagalay inay khalkhal geliyaan amniga caasimada iyo waliba magaalooyinka waaweyn ee Central of Ethiopia dhinaca kale urka al-shabaab waxa rabayeen inay khalkhal guud geliyaan dhanka deegaanka Oromia xiga dhanka dowladda Kenya iyo sidoo kale Ethiopia iyo Soomaaliya iyo waliba dhanka gobolada Afdheer Shabeelle iyo waliba gobolka Nogbeed oo iyaga xiga dhanka dowladda Soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo marka xaaladda dalka Ethiopia waa mid ayadu beriga oo qasayaan wadamada aanu soo sheegnay waxaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena guntiisii gabagabadiisii intaan soo gabagabaynin waa su'aal baan rabaa inaan kaa weydiino wadamada reer galbeedku ma la dhihi karaa laftigooda ayaga dabadan ka riixaya waxaan iyaga ugu waaweyn ma la dhihi karaa dabcan wadamada reer galbeedka taniya intii u bilowday heshiiskii loogu magac daray geeska Afrika ee gaadhay Soomaaliya madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abiy Ahmed iyo waliba Afwerki heshiiskaasi wixii ka dambeysay reer galbeedka intooda badan waxay u arkeen heshiiskaasi mid ayaga ka soo horjeeda isla markaana waxyaabihii ay ka sameeyeen geeska Afrika mid ku noqon doona laf u gasho iyadoo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bihaba looga guuleystay doorashadii dhacday bishii May 15keedii haatan waxay rabaan reer galbeedku ama ku dadaalayaan in la kala furfuro wadamada geeska Afrika la baxay iyo waliba in Abiy Ahmed bihaba Ethiopia uu san isku wadi karin oo ayagu ay halkaas dhaafiyaan marka haatan reer galbeedku waxay rabaan in cadaadis ku saaraan dagaaladu inay sii socdaan sifo Abiy Ahmed uu isku casilo ayagana u kaasladaan qof markaasi uga taliyo gudaha dalka Ethiopia aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeennii falanqaynta toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamid waxaan kaga tegaynaa dhammaantayoo isku duuban sidaa iyo nabadgelyo